markaa xigaa dabku idinka dhigi dumar sidiisiiye markaa xigaana daabaqaada wuu idin dareensiine markaa xigaa dushuu idinka raraan sidaa dameeraaye cajiib wuxuu ka hadlayay waqtigaas isagaa dhibaatada soomaalida haysata iyo in ay waddankan ayagu leeyihiin gumaysigana ay kala dagaalamaan haddaba soo ma habboona suugaanta sabanka iyo soomaalida maanta dadka maanta joogaay inay ka faqra qaataan waqtigaas oo waddanka gumaysi haystay bay intay la dagaalameen bay gobonnimo soo hooyeen maanta oo dalkoodii aan gumaysi haysan oo ay mataqaanaa u madax bannaan yaho jamhuuriyad madax bannaan ay tahay inay dowlad dhistaan iskuna tashadaan talow soo ma haboonaateen ma jiraan abwaano kaleeto oon ka ahayn si maxaa cabdullahi xasan iyo dee markaan nimaano sanadihii dambeeto ee 1960-meeyadii 70-meeyadii abwaano kaleeto ayagu wax ka dhahay dhibaatada Soomaaliya markaad fiirisid runtii way jiraan gabayo badan oo waxa kamid ahaa gabayga halka dhigo ahaa oo singubo tirin jiro hasraacida hasraab sideeda ay kamid tahay suugaanta dambe markaad fiirisid waxay isdhaxaysaa Allah gabayga maanta uu ka hadlay ma jiraan abwaano kaleeto ayagu wax ka dhahay xasuustaada horta intaanan bal kuwan dambe u soo gudbin waxa igu soo dhacday bilowgii qarnigii 19-aad dhexdhexaadkiisii aan dhahayo sanadii 1950-meeyadii ayaa gabay aad iyo aad cajiib ah Soomaalida waxa uu mariyay nin la oran jiray Allah u naxariistee guune bootaan geedi yar gabaygaas oo aan halkan kusoo wada koobi karin waxaa kamid ahaa aqligeeda Soomaali baa ee dawligeedii ayadoo arkaysay dishaa aabihii dhalay umuxaawo iyo aadan bay ku ismanaayeen goortii jannada loo idmiyo ubaxa laacaya ikhtilaafka waa tay dhigan odayadeeni maantana amuur baa dhacday amarra waaweyn niman baa ibliis duufsaday oo ooda loo rogay irir iyo wataa la isku jabay idilkii daaroode dabka ololi iyo qaacu waa aqaladoodii onkod iyo hilaac iyo waxaa aaran lala waayay abaartii waxay noogu wacan oonka nagu raagay waxa ever ka dhigay xoolihii ariya geeliba oo cuqubadan geysaniyo aarankii dhacay waa cuqubadan geysaniyo aabigii dhacay waa cuqubadan geysaniyo aabigii dhacay marka waxaad ka arkaysaa halkaas 1950-meeyadii waa 60 sano ka hor saan filayo marka gabyaguna wuxuu dhintay uu mootan yahay muddo 40 sano iyo waliba wax la jira saan filaya waqtigaas gabaygiis marka hadan wax yar ka sii birrifiyo wuxuu yiri nin waliba u arbu isiri ina adeerkaay la ilow ilaah iyo wadkii uunka leen jiray kol hadaan armaatiga dhiciyo aalo tuman weynay kol hadaan armaatiga dhiciyo aalo tuman weynay itaal iyo inaan xoog la arag soo lama ogaanin wuxuu sii wada wuxuu ku soo gabagabeeyay gabaygiisii iyo aan halkaan ku soo wada koobi karin waxba yaan aragto ila durkina waxaan ku soo ooday abti iyo adeer iyo la noqoy ehelo waaweyn inimada la kala guursado la iskuna ahaay idilkeeda Soomaali waa ul iyo diirkeedi alihiin haduu alla yahay aayir kala jooga alihiin haduu alla yahay aayir kala jooga hadaydan si idab darada iyo fidnada idinku daynayna Cabdullaahi oo una jirayana lagu aadin istiqlaalka noo soo baxana dirirta uu eersan arligii aad ku dhalateen ayaan la idinku aandoosan Cabdullaahi Ciise Allah u naxariisto waqtigii uu ku maqnaa qaramada midoobay oo madax banaanida Soomaalida raadinayay bay ahay marka Cabdullaahi oo una jiro yaana lagu aadin bar inta Cabdullaahi soo laabanayo madax banaanida helin qoriyada kaadsha maxaa garanaysaa marka arliga aad ku dhalateen ayaan la idinku adoonsan oo gumaysiga diida waxaa jiray waqtiga ayada ah oo xisbigii laagada oo dadaalka badan u soo maray gobonnimada Soomaaliya runtiina ku guuleystay waqtigaas waxaa jiray laba group dad kala ahaa inta badan group wuxuu ahaa groupkii xisbiga laga taageersanaa oo gobonnimo doonka ahaa groupna wuxuu ahaa group Talyaanigu u samaystay kuwa inuu ku jabiyo oo mataqaanaa camaarley oo mataqaanaa ka soo horjeeda oo ka dhaadhiciya Talyaanigii Soomaalidu inay toltol tahay col iyo cadaawo isku ah aanan mataqaanaa inay israacdo dawladda noqoto aysan suurtagal ahayn leegaduna halkaas ay diidanaydo inay Soomaali dal iyo dad madax bannaan noqon karto ayay aaminsanaayeen aakhirkiina way ku guuleystay marka waxa weeye aqligeeda Soomaaliba ee dawligeeda ayada arkaysay disha aabihii dhalay waa gabay runtii 1950 ama xilligaasi markuu dhahayo
cuqubadaan geysanay iyo aabigii dhacay iyo aabigii dhacay baa waxaa inoo leh marka maanta de waa iska aamus belatay waxa weeyaan wuxuu yidhi aw yuusuf gabaygii aad tiri guura aan kala aado gabdhihii kolkaas joogay ee diiday gogashooda haddaad maanta goob joogeelad kama gidaadeen kusoo celi gabayaas yuusuf aw yuusuf baraa gabay tiri guura aan kala aado inkastoo munaasabadan uusan lahayn wuxuu yidhi gabay leeyahay guura aan kala aado gabdhihii baadiyaha joogay iyo dhaqankii baadiyaha iyo gabdhaha aysan habboonayn in la guursado iyo ka sheekeynahaya marka 1976 waqti ku dhowba waxaa soo gaaray gabaygaas wuxuu soo gaaray yamyam xirsiyaad allah u naxariistee yamyam wuxuu rabaa marka inuu dhaho aw yuusuf aamus shibdhe maanta waxmaad arage anaga ka daro dibi dhalag aragnay marka wuxuu yidhi aw yuusuf gabay godkii aakharo lagugu riday jeer uu maangeliye naxariis ku weyn baa rabbigay kuu galiinsadayey aw yuusuf gabaygii ahaa guur aan kala aado gabdhihii kugaas joogay ee diiday gogashooda gafafkii iyo tilmaamihii aad ku geli weyday haddaad maanta goob joogeelad kama gidaadeen marka guna bootaan kuwaasa janno ku noqon laha marka guna bootaan geedi yaryarow haddaad maanta joogeelad waxaan leeyahay maanta arrintaas aamus bay ahaan lahayd kama hadasheen dhibka soomaaliya maanta haysta waa tahay ma jiraan abwaano kaleto ayaguna aad xasuusateed hadeertaan oo dhibaatooyinka soomaaliya wax ka tiriyey war caddaaday horta waxa weeyaan lama soo koobi karo inta abwaan oo ka hadashay soomaaliya dhibaatadeeda kama soo koobi haddaan waxyar ka soo qaadano abwaan dhalinyaro ah oo la yidhahdo heellaale abwaan heellaale oo reer soomaali galbeed ah soomaali galbeed kasoo jeeda abwaan aada loo yaqaanana ah ayaa waqti dowladdan ku-meel gaarka ah ee fadhiidka noqotay mar kastana mataqaanaa maalin walbana sanadaha loogu daro mar kasta kasii darta mar uu la sameynayey ayuu wuxuu tiriyay gabay aada iyo aada u dheer wuxuu yidhi dibnahaaga wuxuu yidhi deelayda maansada hadday damacda laabtaadu murti kugu dabaalneed haddaad dabadda keenaysid dibnahaaga maansada haddaad dad uga sheegaysid lama dilo dastuurka ilaahay deexda maansadu hal dalagan darduug laguma dara amase deelqaafe waanaad halkii doomanaa dalaq ku siisaa soomaalaay daleen baynu nahay doorka maantaya doog iyo diraac baan sidii doox u gubannaa mana dabini duur qaraf la suray baan nahoo damal ka qiiqaaye mana damini ololkiinii wuu sii dallaacayaa maa dhibaatada way kasii daraysaa kasii daraysaa duur qaraf la suray baynu nahay oo damal ka qiiqaa meel caws badan haddaad taraf ku daarto aad bay usii gubanaysaa marka wuxuu leeyahay xaaladdanada wayba kasii daraysaaba oo wax soo hagaagaya waxaa dubuhu noogu dhacay iyo danab ilaahay waa daa'imaha dhawaaqiisa iyo ohintii dumarka buu yidhi marka cuqubadii dumarka iyo haweenka iyo caruurta iyo ciyaalka iyo makasta iyo birmageeda laga galay ayaa soomaaliya la degilaadah runta haddii la rabo waa tahay aanu kasoo dhexbaxna bal siyaasadda aanu ka nasano dadku waa ay ku daaleen oo waxa waaye arrimaha siyaasadda maalin kastaa laga hadlaa waxaa la gabyaa laga tiriyaa heesaha laga tiriyaa adu lagama daalo laakiin bal aan u leexano dhinacan iyo sheekada aad tiri bal dib iigu dhig aan kasoo xiisa dhacay siyaasadda xagga jacaylka abwaanka ama gabyaaga iyo ninka kaleeto farqi weyn ayaa udhexeeya markay timaado in dee gogosha haasaa waxa la yimaado arrintaasi ka war